الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صدحية تمناد إيه كتاب كيني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله. هل كان مركو سردنا يا صفاتك إيو تلمامها إليهين دمركاس جنة حور العين إيو كوا كلابا waxaa ka mid a rabbi wuxuu ku sheegay subxaana waxaa ka mid a tilmaamaha waxuurun ciinun ka amhaali lu'lu'i lmaknuun in lagu sheegay xuurun ciin. marka alxuuru lciin waxaa la yidhaahdaa mufasiriintu ay leeyihiin asheekh cabdiraxmaan asacdi oo kale siyaabaha uu ku fasiray waa kuwa indhahooda indha kuulan oo kale wanaag iyo quruxna ay ka muuqato. alciin waa kuwa indhahoodu ay waaweyn yihiin. indhaha waaweynna waxay noqdaan baa la yidhahdaa quruxda ayay dumarka u yihiin. ka amhaali lu'lu'i lmaknuun, lu'lu waa waxyaabaha aadka u cad ayay noqonayaan oo weliba saafiga oo aada iyo aadna saafiga u ah, kuwaas ayaa la yidhaahdaa. nacam, tilmaamaha waxaa ka mid a kaanahuna alyaquut walmarjaan in lagu tilmaamay. imaamu ibnu jariir atabari wuxuu leeyahy alyaquut waa xagga saafinimada iyo xagga almarjaanna waa xagga cadaanta ayay kala mid yihiin oo sifaadkaas ay yihiin. rabbi wuxuu yihi inaa ansha'naahuna inshaaa fajacalnaahuna abkaaran curuban atraaba. alimaam ibnu kathiir oo ayadda isaguna fasirayo curuban wuxuu yidhi waa kuwa raggooda jecel oo isjecelaysiiye weeyaan. waa kuwa cawaashiq oo caashiqa, yani raggooda jacaylka badan, raggooduna ay jecel yihiin iyagana. atraaban waxaa layidhaha kuwo isku da-ah. ibnu cabaas wuxuu yihi dumarka jannada waxaa laga dhigayaa da-dooda 33 jir taqriiban ayay noqonayaan. marka waa da-aad iyo aada u wanaagsan oo isku wada la-eg ayay noqonayaan. waxaa ka mid a sifaadka uu alla ku sheegay in yidhi fiihinna khayraatun xisaan. ibnu qayim raximahullah wuxuu leeyahay alla wuxuu ku tilmaamay inay yihiin khayraatun xisaan, waana sifo lagu jamciyey almaxaasin iyo wanaag oo dhanba daahir iyo baatinba loo kulmiyey dumarka, oo waxaa dhammaystirmay akhlaaqdooda iyo khuluqa abuurkooda iyo akhlaaqdoodiiba way dhammaystirantay. marka taasa alla subxaanahu watacaala isagu geeyey. wuxuu alla ku sifeeyey inay yihiin daahir. walahum fiiha aswaaju mutahara wahum fiiha khaaliduun. aswaaju mutahara. ibnu qayim raximahullah mar kale wuxuu leeyay adahaara wuxuu alla ka dahiray waxyaabihii dhiiggii xaydka iyo kaadi iyo xagga hore iyo xagga dambatona wax ka yimaada jannada male. dumarkaasi waa nadiif ayay noqonayaan. marka sidaas oo kale ayaa alla wuxuu ka dahiray masayrkii iyo aswaajtooda inay dhibaanna alla ayaa ka dahiray. wuxuu rabbi ku tilmaamay subxaanah fiihinna qaasiraatu darf, kuwa indhahooda la koobay baa li qaasiraatu darfi ama xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam. ibnu qayim baa wuxuu leeyahy mar kale maqsuuraatun fi lkhiyaam mamnuucaatun min atabaruj. waxaa laga reebay inay baxaan oy warwareegaan ayaa laga reebay. indhahoodana waxaa lagu gaabiyey calaa aswaajihinna, raggooda unbaa lagu gaabiyey wax kale uma indha taagayaan. qaasiraatu darfi waa sifo dhammaystiran oo ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey oo raggooda ay ku kooban yihiin. asheekh cabdiraxmaan sacdi oo isna fasirayay xuuru maqsuuraatun fi lkhiyaam wuxuu leeyahy waa kuwo ilaahay uu jeclaysiiyey, raggooda ayay jecel yihiin. marka xumaan kale iyo meel kalena ma suuro gasho inay indhaha u taagaan marna. waxaa kaloo lagu tilmaamay lam yatmithunna insun qablahum walaa jaan. cid horay dumarka jannada iyo gaar ahaan gabdhihii xurulciinta markii laga hadlayay hore usoo taabatay ma jiro ayaa la yidhi, oo qofna ma soo taabal. hunna waa abkaar, waa curuban, waa dad aan qofna uga horeynin weeyaan. rasuulka sala allahu calay wasalam yani asxaab badanna waxay ka wariyeen markii laga waramayey ina asxaaba aljannati alyawma fii shughulin faakihuun.
dadka ahlu jannadii waa mashquul bale maalinta. marka taas cabdullaahi ibnu mascuud, ibnu cabaas iyo in badan oo kamida waxay ku mashquulsan yihiin dadkaasi gabdhahaas bikaarada ah iyo wanaagga ilaahay siiyey ayay ku mashquulsan yihiin. waxyaabaha awoodda ilaahay raggana uu siinayo waxaa kamida inay dumar badan ilaa 100 cadra, yacni 100 dumar oo gabdho ah ayay awood u yeelanayaan. oo rabbi subxaanahu watacaala waa axaadiis saxiixa waxaa kamida tilmaamaha rabbi leeyahay muttaki'iina calaa rafrafin khudurin wa cabqariyin xisaan, yacni waxyaabaha ay ku seexanayaan ama ku jiifaan alrafraf alakhdar, marka waa furushtii iyo gogoshii ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey ayaa kamid ah. waxaa kamida tilmaamahooda inuu allah subxaanahu watacaala lagu tilmaamay in la arkayo dhuuxoodii loo jeedayo. waa xadiidkii bukhaari iyo muslim uu labaduba ay soo saareen, yacni sifaad noocaasana way leeyihiin. allah subxaanahu watacaala wanaagiisa janno haynagu arsaaqo. wallahu aclam.